galabta halkan waxaan iskugu nimid inaan qabanno dood cilmiyeed ku saabsan tacdiyada ka dhanka ah bini'aadamka guud ahaan khaas ahaan gabdhaha tacdiyada ku dhaca haddii ay tahay tacdiyada la xiriira galmada haddii ay tahay kuwa jir ahaan ugu dhaca sida gudniinka fircooniga iyo waxyaabaha la mid ah xilligan adag lagu jiro caabuqa COVID-19 oo adduunka hareeyay oo dhibaatooyin fara badan laga yaabo la xiriira caqabadaha ka dhasha COVID-19 laga yaabo inay gabdhuhu tacdiif badan ugu dhacaan guud ahaan tacdiyada mar kasta iyo meel kasta iyo caalamka daafihiisa ayay ka dhacaan laakiin khaas ahaan waxaa laga yaabaa xilligan adag COVID-19 uu jiro in ay dhibaatooyin badan ay gaaraan gabdhuhu soo gaaraan haddii ay tahay gudniinka fircooniga oo laga yaaba in uu bato uu zaa'ido maadaama gabdhihii iskuulaadka ka joogaan oo dee hadda wax iskuul aad ay jirin inta badan waxaa kaloo ayadana dhibaato dhalin kara xilligani adag lagu jiro in dhibaatooyin la xiriira maadaama dadkii in badan baagmundo yihiin howlo fara badan socdaan marka tacdiyada guud ahaan dhaca oo tirada ka badan maanta waxaan rabnaa halkan aan u joognaa inaan dood cilmiyeed ka samayno ayadoo ay joogaan halkan dad khubaro ah ka socda ururada bulshada wasaaradda iyo dad kale oo aqoon-yahanaa waxaan filayaa in uu barnaamijkani noqon doono mid dhaxalgal ah wacyigelintana ay noqotaa mid guud ahaan gaartaa dadka reer Jubbaland iyo Soomaaliya inteeda kale marka waxaan filayaa barnaamijkan xilliga dadka ay daawadaan u soo idaada wacyigelintiisa in ay noqon doonto waxtar leh bulshadana guud ahaan u noqon doono waxtar tacdiyada ku dhaca ama lagu kaca dumarka iyo gabdhaha iyo caruurta in isagana uu yaraan doono aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waa idinka mahad celinaya waqtigiina qaaliga oo nala wadaagteen barnaamijkeena si rasmi ah ayuu noogu furan yahay waa mahadsantihiin soo dhawaada